nawaas binu samcaan allaha ka raali noqday wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah xilli ay ahayd subax ama aroor hore waxa inoo sheekeeyey rasuulkii alle muxamed sallallahu calayhi wasallam oo inooga waramay masiixu dijaal oo si kor iyo hoosba inooga sheekeeyey markaasaan waxaan isnidhi armuu masiixu dijaal ku sugan yahay hadda hareeraha geeda timireedka magaalada madiinatul munawwara markaasuu rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam ka dareemay wejiyadeenna argagax iyo cabsi aan caadi ahayn saa markaasuu ina weydiiyey rasuulka alle muxamed sallallahu calayhi wasallam maxaa idinku dhacay waxaynu ku nidhi rasuulkii allow waxaad goordhow inoogu sheekaysay masiixu dijaal waxaad mar ugu hadashay wax weyn oo saamayn leh marna waxaad ugu hadashay si hoose waxaana macno lahayn oo waxaan isnidhi armuu masiixu dijaal hadda ku sugan yahay hareeraha geeda timireedka magaalada madiinatul munawwara markaasuu rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam yidhi aad idinkagama baqayo aniga oo idin dhex jooga oo anigaa idinkaga filnaan doona oo idinka celin doona haddiise uu soo baxo aniga oo aan idin dhex joogin yacnii aniga oo aan noolayn waa inuu qof kastaa oo idinka mid ah uu tiisii uun ogaadaa yacnii waa inuu qof walba ilaashadaa dantiisa oo uusan mid kale ku mashquulin allo weyne ayaana ah wakiilka iyo ilaaliyaha oo dhowra muslim kasta xitaa haddii aan idinla joogin saa markaasi kadib rasuulkii alle muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu asxaabta u sheegay in masiixu dijaal uu ahaan doono nin dhallinyaro ah oo timo adag leh oo mid ka mid ah indhihiisii ay noqon doonto mid duleesha ama cawiran ama siduu qof walba u yaqaanno mid duleesha oo nuurkeedu aad u yar yahay yacnii aanan si fiican waxba uga arki karin saa intaasi kadib wuxuu rasuulkii alle muxamed sallallahu calayhi wasallam tilmaamay qofku uu u eg yahay masiixu dijaal wuxuu yidhi rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu ila eg yahay masiixu dijaal cabdulcusa binu qadaan ee haddaba kiinii la kulmaa ha ka akhristo bilowga suuratulkahf wuxuuna ka soo bixi doonaa dhankaasi iyo shaam iyo ciraaq dhexdooda wuxuuna sababi doonaa burbur iyo baabac daran waxaana daadan doona dhiig badan xaggaa iyo xaggaaba yacnii midig iyo bidixba haddaba addoommadii allow sabra oo sugnaada oo adkaysta markaasay ku dhaheen asxaabtii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam rasuulkii allow intee la eg ayuu dhulka joogi doonaa oo uu dhulka ku sugnaa doonaa wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhulka joogi doonaa 40 maalmood oo maalinteedii koowaad ay la mid noqon doonto 1 sano dherer ahaan oo maalinta xigtana waxay dherer ahaan la ekaan doontaa 1 bil maalinta saddexaadna waxay dherer ahaan la ekaan doontaa 1 isbuuc ama 1 toddobaad inta kalena waxay noqon doonaan wakhtigoodii caadiga ahaa markaasay asxaabtii rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam ku yidhaahdeen maalinta ay dhirirkayda ahaan doonto 1 sano ma nagu filnaan doontaa inaan dukanno 5 salaadood ee faralka ah ee caadiga ah wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam maya waa inaad qiyaas ku dukataan iyo xisaab inta lagu guda jiro maalintaasi intaasi kadib waxay asxaabtii weydiiyeen rasuulka alle naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee xawli ama dheereen intee la eg ayuu ku mari doonaa dhulka markaasuu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi asxaabtiisii wuxuu dhulka ku mari doonaa sida daruur oo ay dabayl siddo oo kale yacnii si xawli ah ayuu ku mari doonaa dunida oo idin saa markaasi uu u imaan doonaa qoom oo ugu yeeri doonaa inay isagaasi raacaan saa markaasay raaci doonaan yacnii qoomkaasi way rumayn doonaan yeeritaankiisii saa intaasi kadib wuxuu amri doonaa cirka inuu roob soo daayo markaasi kadib cirkiina roob ayuu soo dayn doonaa oo dhulkiina wuxuu soo saari doonaa nakh iyo doog tiro badan oo dadkaasi markii ay galabtii u soo laabtaan xoolahooda waxay ku arki doonaan xoolahooda oo leh kurus cayilan saa markaasi caanihii way iska darari doonaan saa intaasi kadib masiixu dijaal wuxuu u tegi doonaa qoom kale oo wuxuu weydiisan doonaa inay soo raacaan saa markaasi kadib qoomkaasi way diidi doonaan inay isaga raacaan saa masiixu dijaal waa uu ka tegi doonaa isla markii uu ka tagaaba dabadeed waxaa ku dhici doonta abaar oo dhaafi doonta maalkoodii intaasi kadib wuxuu soo mari doonaa masiixu dijaal meel laga guuray oo lama degaan ah wuxuu amri doonaa dhulkeedii inay soo saarto dahabka iyo dheemanka dhexdeeda ceegaaga saa markaasi waxaa soo bixi doona wax waliba oo dhulkaasi sida dahabka iyo dheemanka dhexdeedii ku jiray